fariimaha kala duwan fariinteedu maanta waxay ku socotaa Somaliland iyo duriyadii reer Sheekh Isaaq haddaadan ahayn walaal hore uga gudub hore uga socdo waxaan rabaa inaad ogaataan Mariixaan ma jeerteen ogaadeen dhul bahante dhammaan waxay u heshiyeen inay burburiyaan constitution-ka u dhisan reer Somaliland oo ay u diidan yihiin nabadda iyo dhaqaalaha iyo quruxda ka jirta Somaliland soo nasiib xumo ma aha soo nasiib darro ma aha in maanta dhexdiinu aad inta soo istaagtaan ee aad isku wacataan ee aad tiraahdaan Muuse waa qaldan yahay oo Hebel waa qaldan yahay oo reer Hebel hadeynuna anagu raalli kama nihin inaad tiraahdaan soo doqonnimo halkeeda taagan maaha waxaad ogaataa ma jeerteeni ogaadeen isma jecla Mariixaani ogaadeen isma jecla Mariixaani ma jeerteen isma jecla laakiin dhammaan waxay u midoobeen burburintaada sanataradii Mareykanka Ilhaan Cumar waxaad aragteen warbixinadii ama hadalkii codkii sirta ahaa ee laga duubay waxaad ogtihiin dan iyo farmaajo inaysan heshiis ahayn haddana waxay heshiis ku yihiin burburintiina cagjar iyo farmaajo heshiis ma aha waxay heshiis ku yihiin burburintiina ilmaadeerayaalow nimankan irarka wadaagnow maantay talo u baahan tahay Somaliland ka daaya tafraaruqa ciidanka furinta jooga garab istaaga oo heel ku istaaga oo hadalku garab istaaga odayaal dhaqameedyadow maanta ma aha maalinta dhehileedeen Muuse sidaan yiri ama reer Hebel sidaan yiri maanta maalinta dhehileedeen ma midnimadiinu waa muqaddas waxay u baahan tahay maanta meeshii ay taagneed 30 sano ka hor 40 sano ka hor oo aad u midowdeen inaad samaystaan constitution jira oo dhisan ay u baahan tahay aniga haddaan ahay wiil erer waxaan idinku garab taaganahay dulmiga ay idinku hayaan nimankan aan dalwadaaganahay nimankan maanta u shiraya aqoon-yahanadooda iyo siyaasiyiintooda inay constitution-kiina dhibaateeyaan jacayl iyo xumaan kale ma waxay arki laayiin waxa Somaliland ka jira dhabta taagana sida ah dhul mahantana waxa loo adeegsanayaa burburintiina dhul bahante burburinta Somaliland loo adeegsanaya laakiin waxaan ku kalsoonahay libaaxyada geeska Afrika ee Somaliland ee furmaha joogan ku kalsoonahay ma fahanti laakiin odayaasha ka daba hadlaya ee dhahaya waxaan waa qaldan yihiin ee dhahaya waxaan waa sidaan ha iska daayaan xilligeedii ma aha farmaajo 5 sano oo haystay xukuumadda Soomaaliya wuxuu tababarayay dhul mahante oo saraakiilka dhigayay intaana ulajeedkiisa waxay ahayd inuu maalin ku weeraro Somaliland maanta haddaad adinku luqaafadii weysaan dibad ka